السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada channelkayga Yasmin Style Tube maanta waxaan noo wadaa nafaqada timaha tima qalalan hadaa leedahay jajabayaan halkaas waxaan ku haystaa 2 xabo ukun waxaan ku haystaa qumbaha kareemka qumbaha ama coconut cream iyo avocado oil kan waxaa waaye saliida rosemary-ga waa saliida rosemary-ga oo kanna waxaa waaye nafaqada timaha hair treatment waaye oo qumba ka samaysan aad iyo aad ay timaha saliid u yeeshaa markii la dhaqo kadib aa la marsadaa bac baa lagu xiraa kadibna waa laga dhaqaa biyaa looga raaciyaa marka ukunta waxaan ka isticmaali rabaa qaybta jaalaha ah xabka waa ka daadinayaa saa ujeedaan qaybtaas bes aa u baahanahay midda kale labaad sidoo kale xabkiyaan ka daadinayaa qaybta jaalaha ayaan ka reebayaa baaquligaasaan kusoo shubay xabki uma baahni halkaasaan iska dhigayaa waxaan soo qaatay qaybti kale oo ukunta si fiican aan u qasayaa waxaan kusoo darayaa coconut cream kareenka caanaha qumbaha waaye kareenkan marka saliid badan ayuu leeyahay boxkaas yar waxaa waaye ilaa iyo 4 qaado waaye kuwa waxaa jiraan gasac ku imaadaan gasac haddaa haysato qaado 4 qaadaa ka dhigan kartaa mise 3 intii baan isku soo qasayaa ukuntii xabka ahee ukunti jaalaha qaybta jaalaha iyo waxaa waaye caanihii kareemka qumbaha waxaa kaloon kusoo shubayaa saliida rosemary-ga 2 qaado saliida rosemary-ga lagama sheekeyn karo timaha faa'iidooyinkay u leedahay waxaa kaloon kusoo darayaa avocadada saliideeda dabiici waaye saliidan avocado oil waaye dabiici waaye intii baan isku soo daray waa saliida rosemary-ga iyo saliida avocadaha iyo waxaa waayey ukuntii iyo caanihii qumbaha sidaasay saliid kareen u tahay waxaan kusoo darayaa hadda marka qaado kalaan soo qaadanayaa nafaqadiyaan kusoo darayaa nafaqadan timaha way kala furfuri dhalaalna way u yeeli marka iyadana waan kusoo darayaa maadaama oon nafaqaba samaysanayo tanna waxay iga caawinaysaa inay timaha tima isku dhegdhegan ay noqonin hair treatment aa ku qoran timaha inay saliid u yeesho ama ay qoyso timaha qalalana loogu talagalay calaa kulli xaal qaleelka timaha loogu talagalay timahaada hadday qalalan yihiin saliid haddaa ka buuxiso xitaa ay ka muuqanaynin ay saliidda dhuuqayaan ay tima jajabayaan ay yihiin intaan soo daa'imi insha allah waad ka heli doontaa aad iyo aad oga heleysaan waynani caawin doonaan timaha qalalan waxaa waaye muhiimadda koowaad waxaa waaye inaad u hesho saliid fiican oo dabiici ah jilcisadana waad ooga maarmaysiin insha allah markaad soo marsato intaasaan isku soo qasay bacdaasaa madaxa gashani 1 saac baad la joogi kadibna waa iska soo dhaqi timaha xariir bay ku noqonayaan gacantaan iigu tilmaamayaa tima xariir ah oo shalladaba saas u dhex marayso yay kuu noqonayaan insha allah dhalaalna way u yeelayaan timo dhalaalayaan oo saliidda markaa mariso xitaa ka muuqanayso maasha allah waxaan soo qabsaday timihii 4 qeybaan kasoo dhigay musqushiyaan soo galay
afar qeyb aan u shalleeyay oo isku xiray marka saas tartiib aan u marsanaya marka timihii aan marinayaa waan ku masaajeynayaa lafta hoose ilaa iyo fiida kore yaan si fiican u soo marinaa waan ku masaajeynaa maasha allah laakiin maadaama oo nafaqada dareero tahay waxaa waaye waxaan inay igu dadaadanin marka qiyaasa u marsanayaa markaan mariyo shalladii aan qaatay saa ujeedaan waan ku shallaynayaa marka waan ku shallaynaa haddana waan duuduubi sidoisaa ku celinayaa waan shallaynayaa weli si fiican ilaa iyo fiidaan gaarsiinaa kadib waxaan isticmaalayaa biinankaas yaryar aan ku xirayaa siday u soo furfurmin markaan bacda madaxa geliyo biinkii aan ku xiray oo biimanka yaryar oo ilmaha timaha loogu xirxiro biimankii aan ku xiray waxaa kaloon ku dhinaca kale haddana sidoo kale waan marinayaa waan ku shallaynayaa si fiican baan ugu masaajeynaa lafta ilaa iyo fiida inay qoydo tinta kadib shalladii baan qaatay haddana waan kusoo shallaynayaa waan duuduubayaa haddana biinkaasaa ku qabanaa yariiska maasha allah waan soo duuduubay waxaan ku xirayaa haddana biinkaas afar qeyb iyo 3 qeyb timahaada qiyaastooday ku xiran tahay markaan timaha marinayo sidaas waaye kareen gacanteydaan iga tusayaa kareen waaye marka sidaasaan ugu soo masaajeeyey si fiican baan ilaa iyo salka wax walba markaad timaha marinaysa cilaanna allaha ka dhigee waxaa la rabaa inaad si fiican ilaa iyo fiida ilaa iyo hoos meeshay timaha ka soo baxayaan aad gaarsiiso madaxa qaboow kuu noqoni waxaa kaloo kaa caawinaysaa maadaama oo kareemka qumbaha iyo saliidahaas aan ku dardaray lafta hoose waxay ka ilaalinayaan agoolka si uu agool kuugu dhalanin haddaad asbuuc walba marsato waxaa waaye agool iyo adi waa isdayseen timahana qaleel ma kaa noqonayaan maasha allah soo tijaabiya kana faa'iidaystaa alaabtan qof walba gurigiis way taalaa nafaqa adig kuu shaqaysa haddaa haysato ukun iyo saliido uun ku darso bis iyo qumbaha caanihiisa waan soo dhameeyey waan soo marsaday gacmiyaan iska dhaqayaa hadda si fiican gacmaha dhan saliid bay yihiin saa ujeedaan aan iska dhaqaayo marka waxaan soo qaatay bacdiyaan madaxa gashanayaa hadda bacdi waan ku uurinayaa daarta masar waa kasii kor xiran kartaa bacdiyaan soo gashtay gacmaha iska biyo raacinayaa haddana shalladii aan isticmaalayay ayaan iska dhaqdhaqayaa